الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إلهي سبحانه وتعالى ما هذا سكلين نمعوين فربنا كوكل الله يستي أنت كدي وحنا صدر دار من عبد ربي سبحانه وتعالى تاسنا waa shay laga maarmaan mar walba in la isu dardaarmo ilaahina tabaaraka wa tacaala inaga intiina ka horeysay ee u dardaarmay inta kadib walaalayaal waxaan rabaa klibkan yar inaan kula wadaago walaalaha muslimiinta gaar ahaan walaalaha kubadda cagta dheelaya oo galabta ay uga bilaabanayso deegaanada Puntland gaar ahaan magaalada Garowe ee caasimadda Puntland waxaan ognahay kubadda cagtu caafimaad ahaan waa wax loo baahan yahay laakiin waxa la rabaa in shuruucdeeda iyo shuruudeeda la ilaaliyo oo qofka walaalka ay dheelaya أو إله سبحانه وتعالى حدود كيس أو إلاليه أو أي كم يتها دقن كوناكسن أو ده أخلاق دي إن إلاليه أو صلاة دي واجبات إله سبحانه وتعالى أو صاري أو ضدك بني آدم أو قوة كبيرة إن إلاليه شيء لقى مرمانا وي هدي أن تصل إلالينا دي واحد نقونيسا حرام بيكون نقونيسا مركب واحد ولا لها قدر دار من أو هرين هرتا واجبات إله سبحانه وتعالى أو صارين إلاليان والصلاة أو هريسه واحد بدن بعضك ولا لها صلاة وكتكتا وعلى جاب أنت سديت ساعة تورني ولا قله إن عصر كله كذا أو مغرب كله كذا عشير روحيس أو قيل كقلة أنت هؤلاء يسجريان مركب واحد لأنها ولا لها ورت واجبات إله سبحانه وتعالى كو صلاة إنه إلى لنا مركب إنه صلاة إنه تكنه هذه وقت كذا أو صوق ولا حتى صلاة وقت كذا أو صوق شو بدينا يسعته واحد مهم أدتك كابتن ذا أو صلاة أو بهاش هدادهين إنه توجيان ومحاش بهاش شريعة الإسلام كله وافتيه وإله سبحانه وتعالى لو عبسه تاسو عمد قدر كلا waxaa dhaca inta badan isdhexgal bulsho dhaca oo waliba gabdho iyo wiilal u badan oo laga yaabo Ilaahna subhanahu wa ta'ala uu xarimay inay rag iyo dumar ajnabi kala isdhex yaacaan oo isdhex galaan oo meel wada fariistaan arintaasna marka waxa la rabaa aan ugu baaqaynaa dawladda iyo inta arinta ka shaqeynaysa gaar ahaan wasiiradda dhalinyarada oo arintaas maxaan ku dhahay mas'uuliyadeeda iyadoo iska leh inay arintaas ay ilaaliso oo ay qaadato oo arintaas aynu ilaalino shariicada islaamka aynu ku ilaalino oo ragga iyo dumarkaas isdhex yaacaya in ragguna meel gaar ah ay ka galaan oo ka fariistaan dumarkuna meel gaar ah ay fariistaan sidaasna ay insha Allah ta'ala aynu shariicada islaamka aynu ku dhowrno waxa kale oo la rabaa in la ilaaliyo akhlaaqda iyo dhaqanka wanaagsan mar haddii kubad dheelaya waxa laga yaabaa labada koox oo dheelaya maalinta in laba dadka bulshada ay la kala saftaaneen oo markaa bulshadiisa lagu kiciyo waxyaalo qabyaalad iyo qurun iyo casabiyo xun ay meesha soo gasho arintaasna waa laga maarmaan inaan isku ilaalino dhamaantiin dad walaalaha baynu nahay innamal mu'minuuna ikhwa ilaahi subhanahu wa ta'ala yiri waxa ayna walaalaynayo waa diinta islaamka waxaanu walaalo ku nahay waa ayada dad Soomaaliyeed wada nahay dad isku jiraynu wada nahay arintaas marka waxa la rabaa aysan shaxnaa iyo baqdaa iyo midna aysan abuurin iyo xasad midna aysan keenin oo dadku ay yihiin dad walaalaha dad wada dhashay dad isku meel ka soo jeeda dad isku jira intaas oo dhan inaan ilaalino waxay ku xiran tahay inaynu inagu ilaahi subhanahu wa ta'ala ka cabsano إلهنا تبارك وتعالى إنه كحرنا هاي إنها سان ولا لها كبرارجين لها كبدا أي وبلابنيسو مركب واحد لأنها إله سبحانه وتعالى وغرين مرول بأنه إله كعبسنا النبي عليه الصلاة والسلام وحليه اتق الله حيث ما كنت ميل والبا وقفك تشوي إنه إله كعبسنا وشيء لقى مارمان هدو كبدا إلى يهدو وضد مرة يهدو جرجس تشوي يهدو ميل والبتشوي إنه إله سبحانه وتعالى كعبسنا وشيء لقى مارمان مركب عرنت إنه كده دالنا دغن كصوبان إيه أخلاقنا إنه إلهنا وحديث كروحي أو النبي عليه الصلاة والسلام أي كم إذا قدر كس قدامي أوها وخالق الناس بخلق حسن dadka in akhlaaq wanaagsan ay kula dhaqantid oo askarta ruuxooda ay dhaqanka oo meesha ilaalinaysa ay ilaaliyaan waxaan ku dhacayda iyo waxyaalaha qulunka iyo fuxshiga waxa soo dhacay ka fogaadaan oo dadka si wanaagsan loo wada dhaqmo si wanaagsan loo wada hadlo xabada iyo qurunka iyo qashinka iyo waxa soo dhan laga fogaado dadku si silmiyo nabadgelyo kubadaas ay ku ciyaaraan haday samee iska dayneen oo salaadoodii waajibaadkooda ay ilaaliyaan inaasan oran lahaa sallallahu alayhi wa sallam ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in